halkan waxaan iskugu nimi kulan baroordiiq ah oo taasi ah aan ugu tala galnay halyeeyigii aqoonyahankii gobolada Soolsanaag iyo Cayn iyo Soomaaliyaba Professor Cali Khaliif Galayd oo hore u soo ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya 2000 intii ka dambeysayna ahaa siyaasi ruuqada ah oo u tafaxaytay sidii uu dadka mandaqadan gobolada Soolsanaag iyo Cayn degan uu u horumarin lahaa uguna dari lahaa gobolada horumaray inta kadib Cali Allah u naxariisto waan u ducaynaynaa gaar ahaan waxaan taasi u diranaa familkiisa caruurtiisa iyo walaalihii iyo qoysku ka geeriyooday gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo reer SSCba taasi baan u diranaa inta ka gadaal kulay naf walba xilligeeda dhimanaysa qofna waqtigiisa ma seegayo qof walbaana wuxuu sababsadaa mootul qofnuhu waa wax jira oo dadku waa u dhintaan nabigeena rasuulka sallallahu alayhi wasallam ba ka ducaystay inta kadib waxaan codsanaynaa in meydkiisa baaritaan lagu sameeyo waayo dadyowga Soomaaliyeed iyo reer SSCba runtii tuhun weyn bay qabaan tuhunkaana dadku waa bilaadan oo way tumaan waligeeda la tuhmi jiray waa wax yacnaha sharciyana laakiin waxaan codsanaynaa bal tuhunka in laga shaki saaro hadaan reer SSC oo baaritaan lagu sameeyo meydkaan aan la aasin ilaa la xaqiijiyo corona haduu u dhintay coronuhu waa cudur jira dadka dhan baa u dhinta xanuun kaleba waa ku soo boodi karaa hase ahaatee anagu aan u taaganahay ee aan codsanaynaa waxa weeyaan waa baaritaanka kadibna la aaso natiijada soo baxda Allah wa inna ilayhi raaji'uun magacay Wardaan Umar Ismaaciil waxaan kan baroordiiq ugu daraynaa hogaamiyihii SSC ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka 2000 ilaa 2001 ilaa uu naxariista Cali Khaliif Galayd hadaan nahay ummadda reer SSC baroordiiq baan u daraynaa familkiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay naga samasiyo dabcan mootul qaflo buu ahaa laakiin sababo kale way ku jireen xaal kasto u dhintay si kasto u dhintay Ilaahay ha u naxariisto hadii wax la gaarsiiyay iyo hadii Ilaahay tiisi u keentay Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo hadaan nahay dhalinta SSC baroordiiq baan u daraynaa aad baan uga burgoonayna Ilaahay Cali oo kale mar labaad ha noo soo saaro Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo faataxada ha loo maro waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed Cali ruuqada buu ahaa waligii yaabtii siyaasadda Soomaaliyeed ku jiray dadkii la mid ahaana bar hore akhriistan yaro nool ma ahaan waxaan ka codsanaynaa in ay iska cafiyaan cid wax haysta Soomaaliyeed marka hore sayna Allah wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu halka isugu nimnay in aanu tacsi tiiraaya la u dirno ummadana Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan mar labaad iyo mar saddexaad tacsi labaad u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka gooriyooday marxuum Cali Khaliif Galayd oo sida aynu wada ognahayba taariikh weyn ku leh gobolada Soolsanaag iyo Cayn waxa uu ahaa halyeey buu ahaa wuxuu ahaa aqoonyahan waxa uu ahaa madaxda gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ilaahay waxaan ka baryanaa in uu janno farduusa ka waraabiyo waxaan ilaahay ka baryanaa in uu sakaraadka dhaafiyo su'aasheena ilaahay u fududeeyo inuu qabriga ilaahay u waasiciyo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa waxa aan kale ilaahay uga rajaynaynaa in bedel khayr qabo oo isagoo kala oo daacad ah in ilaahayna siiyo ilaahay waxaan ka baryanaa oo kale qoyskii iyo qaraabadii samir buuxda in qalbiga ilaahay u qaboojiyo in iimaanka ilaahay u qaboojiyo gobolada SSC Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa aan oran lahaa dhalinyaradeeda iyo aqoonyahankeedu in ay sameeyaan baroordiiqtaas waa mid waajib ah oo ah inaan emotion ahaan aan u dareensiino meel kasta aynu joogno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ilayhi raaji'uun inna lillahi ma aqad wa lahu ma a'daa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma inna al-'ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna indhuhu way ooyayaan qalbigu murugoonaya dhihimayno waxa la raali ka yahay mooyaane waxaan u taasiyadaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed gaar ahaan shacbiga reer SSC waxaan leenahay Allah u naxariisto Cali Khaliif uu joogay maanta waxaanu dareemanaa halkii inaga joogay maanta waxaanu dareemanaa in boos inagu banaanaaday maanta waxaanu dareemanaa in halyeey inaga baxay insha Allah hadii Allah idman waxaan rajaynaynaa in bedelkiisa degdega Ilaahayna siiyo waxaan ku baaqanaa dhammaan waxyaalihii uu gacanta ku hayay waxay ahaayeen waxyaalo masiiriya waxay ahaayeen waxyaalo ummadan dan ugu jirto waxay ahaayeen waxyaalo uu u soo xooray waqtigiisii jaamacadiisii nolol fiican uu ku noolaa Mareykan uu ka yimi waxa uu halkan u yimi
oo geerida jigjiga ugu mutay oo silaca iyo dhibaatada u mutay oo muddo 10 sano u wareegayay dunidan iyo Afrikadan caafimaad darrada iyo Soomaaliyadan dhibaatadu ka jirto u wareegay waxay ahayd innaga mustaqbalkeena innaga ayuu doonayay inuu meel wacan oo jeediyo innaga ayuu doonayay inuu jaha wacan oo jeediyo innaga ayuu doonayay inaynu nolol wacan ku noolaano laakiin nasiib darro qadarka Alle iyo amarka Alle ayaa sababtay iyadoo midhihiisii iyo dadaalkiisii oo meel fiican maraya aan la gaadhin ilaahay waxay weydiisananaa riyooyinkiisii inuu ilaahay inoo rumeeyo in ilaahay inaga soo saaro ama wiil ha ahaado ama gabadh ha ahaado ilaahay inaga soo saaro qof riyooyinkiisii iyo hamigii uu lahaa qof ku dhiiraday ilaahay inuu inaga soo saaro waxaan weydiisananaa ilaahay inuu inaga soo saaro qof aqoontiisii iyo cilmigiisii iyo hankiisii iyo dadnimadiisii iyo diintiisii iyo dhaqankii iyo Soomaalidu suu yaqaan qof intaba ilaahay kulan siiyay ayaan weydiisananaa in bulshada ilaahay inooga soo saaro dhammaan ummadda islaamka iyo Soomaaliyeedna cafis baan u weydiinaa inay iska cafiyaan waa aadamuhu dambi waa bashar dambi baa ka dhacaya waxaan codsananaa in la cafiyo marxuumka in la cafiyaan codsananaa sidoo kale qodob dhammaan dhalinyarada iyo dareenka bulshadu ay qabto ayaanu soo gudbinanaa qodobkaas wuxuu yahay Professor Cali Khaliif Galeyd haliyay buu ahaa runtii qiimo weyn leh geeradiisa iyo dhimashadiisu naxdin weyn oo degdega oo nataabatay nagu reebtay runtii bulshadu xanuun kuma ogeyn bulshadu isagoo caafimaad qaba deegaankan ka maqan dantoodii ku maqan bay ka warhaysay geeradiisu shalay si degdeg ugu soo baxday bulshadana waa ka naxday runtii su'aalo badan baa la isweydiiyay dhimashadiisa bulshadana waxay codsanaysaa baadhid mid bay codsanaysaa qoto dheer in la sameeyo micnaheedu maaha cid lagu dhaliili maayo cid lama maagayo cid looma sheedo cid lagu duri maayo baadhida in la baadho sababta Cali Khaliif dhimashadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ma mahad subhanahu wa ta'ala bulshadan aad arkaysaan iyo dadkan soo xum dhaafiyay meesha ay isku yimid kulay waxay meesha isugu yimaadeen dareen iyo xaalad kicisay oo kadisoo ku timid oo saameyn aad iyo aad u fara badan oo la oran karo wax la filayna maaha waana xaalad gilgishay guud ahaan iyo gaar ahaanba geyiga Soomaaliyeed iyo intan mandaqadan kulay uu ka soo jeeday ku nool علي الله نحرسته سبحانه وتعالى وينقوه سيمان تدعو إنه بهن يهي أنا واحد الكبدين مايو علينا بوسك ومدة وجري يتاريخ ديسا يوح السوق بتاعي أقول مش وكجاري أنتم ويقارن تاعي لكن وحكب حي بوس عن عد كل هدر عن عد موقت بوحين كرتا عن لهين تاجي وجالس بمر نقالي كوهاي ولالك ها لوصل شيء ميت كيسة وحيري سرسري يقول بنانا مس يسدي يقول أضناي نين سيرات كده ما يروحوا شيء تصوما حابة سو كده هنكون ديشري سلوب كجريو لا ونحرست علي وحنا كلا عصرنا نكون مركز سياسي أي تطبطن بي خلاف ده مريا حول بدن بإيمان يا سيالة فرب بدن بمقتاي ليس جوهر إيمان كرا وحنا عصرنا وأنو كعصرنا عيد كست أو حكت بناسه inay cafiso maanta isaga uu inaga hooseeyaa inaga nool cid kasta oo wax ka taban halkan dhamaan waxaan joognaa inaan taxsi Professor Cali Khaliif Galeyd oo geeriyooday dowladda Soomaaliya Itoobiya intaas oo dhalinyaro arday waxa soo saaray dareen iyo furigo shalay kooda doorno soo boodalay waxa dhintay Professor Cali Khaliif Galeyd intaas arday waxaan ugu ducaynaa ilaahay si uu naxariisto maanta taa mintaqaana inaga hooseeyaa Professor Cali Khaliif Galeyd waxaan u tooganaynaa ilaahay inuu كل نفس ذائقة الموت waxaan halkan isugu nimi anagoo muujinayna dareenkayga geerida ku timi halyeeygeena Professor Dr. Cali Khaliif Galeyd kulay naf waliba maalin bay leedahay inagoo og adduunkan inaan baaqi lagu ahaanaynin haddana kulay calimaantiisii buu galbaday asbaab kastaba ha keentee geeridiisu aad bay noo taabatay waayo cali waqtiyadu iminka dhaqdhaqaaqayay wuxuu u socday waxay ahayd anaga mustaqbalkayaga mustaqbalkaygu u socday wuxuu doonayay dadka deegaanada gobolka SSC oo dhan deegaanada SSC oo dhan inay lahaadaan
dawlad u madax bannaan inay mustaqbal lahaadaan haddana halyey kaasoo kale oo la mid ah kolley inuu inoo dhalan doono in dee iminka inuu jiro ma u malaynayo cali oo kale inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun baan leeyahay ilaahay cali ha u naxariisto waan u ducaynaynaa ilaahay marti la jecel yahay ha ka dhigo qabrigiisa nuur iyo waasac ilaahay ha uga dhigo ilaahay waxaan uga baryaynaa siduu wanaagga noola jeclaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu isagana wanaag ula jeclaado ilaahay nebigiisa la kulmiyo maciisa ka dhigo cali kole qof nagu weyn buu ahaa qof qaaliyuu ahaa qofin marnaba qof isagoo kale aynan helen buu ahaa kole hadal badan waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan taxsi u diraynaa Soomaali weyn oo dhan iyo reer SSC gaar ahaan reer Galayd waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa waxa diir madowle oo laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah leh aan ka bilaabina reer SSC inaad cafiyo masaamax ninka tiraahdaan oo cafidaan qofka gaf waa ka dhici karaa ummadda islaamka wixii ashahaata ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaa raas casay raas kabooni waxaan ka codsanaynaa inay cafiyo masaamax dhahan ilaahay qabrigiisana ha u nuursho ilaahay qabrigiisana ha u waasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun annagoo ah haweenka gobolada SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn waxaan tacsi tiiraayan looga diraynaa halkan madaxweynahayagii Khaatumo Professor Cali Khaliif Galayd oo ku geeriyooday wadanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga waxaan tacsi tiiraayan looga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday halgamaagaas halyeygaas naga baxay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala godka ha u nuuriyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa inuu ilaahay janna firdawsa a'la geeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leeyahay dunida ka tagiya adduunka ka tagiya waxa dhibkay ahayd baa aakhiro waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa kuwa ilaahay uu ka dhigo carshiga ilaahay harsada tacsi tiiraayan looga dirayaa dhammaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan weynay indhihi kaliya aan lahayn rabbi subxaanahu wa ta'aala samri iimaan saadiq ah inaga sii waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatu maanta waxaan isugu soo baxnay hadaan nahay gobolka Sool taasida Cali Khaliif Galayd ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariista janno in ilaahay ka waraabiyo qabriga ilaahay inuu waasiyo marti la jecel yahay in ilaahay ka yeelo baan ilaahay weydiinanaa halyey Soomaaliyeed ayuu ahaa halyey qaran ayuu ahaa wuxuu maanta soo qabtay Cali Khaliif taariikhda ayaa xusi doonta tacsi gaar ah waxaan u dirayaa ehladii iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka soo jeeday Cali Khaliif Galayd ilaahay waxaan u weydiinayaa in ilaahay qalbiga uu qaboojiyo samir iyo iimaan saadiqana ilaahay siiyo baan ilaahay weydiinanaa inagana ilaahay waxaan ka baryaynaa Cali Khaliif xalay booska uu inagu baneeyay ilaahum bawga haddaynu dareeminaa markuu noolaa maynan dareemin gashay xalfadan wanaagsan ee sharafta iyo maamuuska leh halkan waxaan tacsi baaqa uga dirayaa Cali Khaliif Galayd madaxweynaheenii SSC oo inaga geeriyooday naxariistii janna Allah ka waraabiyo haddii macnaha baadhistiisa lagu helo in macnaha la dilo gacan ka xaq daran dishayna muslimiinta waxaan ka baryayaa in maxay hayday aan Cali Khaliif lagu dhaafin aan Cali Khaliif lagaga samrin dabagal in lagu sameeyo wixii dilay haddii ay noqoto in la dilay oo gacan ka xaq daran dishayna Cali Khaliif inaan saa lagu dhaafin baan muslimiinta oo dhan ogeysiinaya oo sheegay والسلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل شيء قدر ما شاء وإحنا هلكن تاسي أنا سجوني ببرود دقيقة إحنا هلكن تاسي أنا سوق هو بكرام مقدر أنا بروفيسور كي إكس وسير كي أنا مدحوني خاتم استاف صومالي بروفيسور علي خليف Galayd تحسيد كتمي أد بانوجا حمانا أد بانوجا نحن لكن كل شيء قدر ما شاء الله سبحانه وتعالى وحنا قبرية إنه عذاب القبر وسنتوسين كتاب كسميدكتنا وميدكت وقريبه جنة فردوس الأعلى نوجو بشارين كإلهي لما الإسلام كانوا حنقول السنة كل من هذا يخطأ على البناء هذا كو خلدميا إن عفس راسيو إن له دعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون وكعنا هاي تعسيرة مدحوينه خاتمه بروفيسور علي خليف Galayd إحنا رئيس وزراء هو الصومالية إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هو نحرسته قبرك هو واسعيه سؤاله إلهي هو فضيله أنا جن إلهي هو قدم نحرسته هديك عنك حق دردشيا دو COVID-19 ودينتبه حنرجعنا إن لنا بارو هديك لنا وإرادة إلهي ودينتنا قف كستمر بليه ونديمنا إلهي هو نحرسته وحندعاه إنه معونا إلهي راجعون كل نفس ذائقة الموت أنا بقى لأن يردي قبل SSC وحان تعسي تيرانيا لو درينا
dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Khaatumo iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Professor Cali Khaliif Garayd madaxweynahana waxaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryanaa inuu jannadiisa ka waraabiyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu cadaabul qabriga ka badbaadiyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dhigo marti la soo dhaweeyo haddaanu nahay dadweynaha ku dhaqan gobolka Sool waxaanu tacsidaas mar koowaad iyo mar saddexaad buu diranaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan rabaa inaan halkan mid yar kula wadaago waxaa la tegayaa meesha la yiraahdo Muqdisho ayaa la geynayaa meydka madaxweynaha waxaan rabnaa cuqaasha iyo garaadada tegaya in dee meesha markay tagaan ay iska soo noqonayaan halkaas dambe heerka ay wax u soo saaraan aad iyo aad u mahadsantihiin kulan duca iyo geeriya oo aan ugu tacsiyadeynayno marxuum Professor Cali Khaliif Garayd Professor Cali Khaliif Garayd waa taariikhdiisa iyo wuxuu qabtay halkan kuma soo koobi karno waxaan u awoodnaa waa duco waanu ducaynaynaa Ilaahay inuu jannada firdawsa ka waraabiyo waxaanu galoo samiriyeeman dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u diraynaa taxsi gaar ahaanna inta tagta gobolada SSC Sooliya Sanaag iyo Cayn waxaan leenahay Ilaahay qabriga u nuuro haliyay inaga baxay buu ahaa taariikhdiisana ma soo koobi karno marka ilaahay raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyadeynaynaa madaxweynihii dhintay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Garayd waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer SSC waxaan halkan ka diraynaa codsi ah in meydka ra'iisul wasaare hore la baaro laguna baado magaalada Muqdisho kaasoo mid madax banaan waxaan halkan si gaar ah tacsida ugu dirayaa qoyskii ilmo galeed oo ka dhintay professorku waxaa leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan haydi ka siiyo anagana samir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo isagana Ilaahay jannadiisa ha ku irsaaqo bilaa